hotel deere ee magaalada Burco waxaa maanta lagu caleema saaray Caaqil Baashe Xaaji Maxamed Cawid oo ka mid noqon doona cuqaasha gobolka Togdheer. Caaqilkani cusub ayaa caleema saarkiisa waxaa ka soo qayb galay cuqaal tiro badan oo ka kala yimi qaar ka mid ah gobolada waxgaradka haweenka iyo aqoonyahanka beesha caleema saaratay caaqilkani ee Ibrahim Alla Magan iyo mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka socday dawladda waxaana dhammaanba dadkii madasha caleema saarka caaqilkani ka hadlay ay hambalyo iyo duco u direen Caaqil Baashe Xaaji Maxamed Cawid. waa Caaqil Baashe Xaaji Maxamed Cawid dhunkaal oo ay tahay maanta caleema saarkiisii labaad hore loogu soo caleema saaray deegaanka Saraar Alla Magan kuna magac dheer Hayiile waxaanu soo caleema saarnay caaqilkaanu wadno waa caaqil aqoon ahaan hawuu soo shaqeeyey oo caaqilnimada ku soo shaqeeyey oo guurtinimada ku soo shaqeeyey nimay rarka ku tahay oo rarkoobaya oo baashu u cusubtay maahe waa nin ka galin jamiic caleentuma maanta lagu dhaabinayaa waxaanu ugu ducaynaynaa ilaahay xilka inuu u fududeeyo. waxaad ka mid noqotay cuqaasha siduu sheegay ninkii ka horeeyay cuqaasha Soomaaliland ma tihid caaqil Hayiile ma tihid caaqil Soomaaliland baa tahay waanu soo dhaweynaynaa beeshii soo dooratay Hayiilena waxaan leenahay waad la qaadanaa caaqilkan wanidi ka maraya caaqil fiican baa keenteen la shaqeeya ishareetaaga markaasoo caaqil noqonaya waxaanu leenahay Baashe soo dhawow garabkayagii baa tahay gacantayadii baa tahay gargaar iyo gacan furan baanu kugu soo dhameeynaa guddoon jiricsan gareexo gacmo laaban qof kastoo madaxa saddexdaas halis ah saddexdaas un biska ogaanaya Baashe Xaaji Maxamed Cawid qof kasta oo halkan ka hadlay uu marxaati furay inuu yahay nin hawlkara oo ka adag shaqada loo igmaday ee reerku u igmaday waxaan Ilaahay uga baryaa inuu Ilaahay u fududeeyo caaqilka maanta la doortay marka hore waan u ducaynayaa anigu waxaan leeyahay xilka lagu igmaday Ilaahay ku fudud caaqilka doorashadiisii Baashe iyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadiisii labada doorasho isku soo hagaagay waa caaqil ku habboon ku wanaagsan oo nasiib boorta ku leeyahay marka labaadna waan idin sheegay caaqilkan masalada labaad uu ku nasiib leeyahay waxa weeye maalinta la doortay waa maalintii Sayid Al-Ayaamka waa maalin Jimcaha iyo nasiib ku leeyahay ku hadlayo maamulka afka gobolka maamulka gobolka Togdheer waxaan leeyahay waan la shaqeyn doonaa. ugu dambeyntiina caaqilkani cusub ee Baashe Xaaji Maxamed oo lagu caano shubtay ayaa halkaasi kala hadlay ummadii dooratay iyo dadkii ka soo qayb galay madashaasi. mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kastoo xafladan ka soo qayb gashay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan u dirayaa oo halkan uga jeedinayaa hal ereygaasoo ah inay kula noolaadaan bulshada nabadgelyo iyo deris wanaag iyo samir iyo dulqaad. Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco.